waxaa halka ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xukuumadda Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo waxayna ugu mahad celiyeen qurba joogta reer Soomaaliland dadaalada dheeraadka ah u galeen siday wadankooda u dhis lahaayeen iyo horumarka dalka sidoo kale wasiiradu waxay ku buuriyeen howlahan dhiirigelinta ay ka wadaan jaaliyada reer Soomaaliland dalka iyo dabadaba waxaana ugu horeyn halka ka hadlay wasiirka madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan salaanka dibaadiyad baan runtii ugu faraxsanahay idinkana mahad celinaya أجيبستا نجا أجيبتين إن هالكن عاو هالكن عشان شرفتن أنا إذا كنت لقى لينا إذا كنت سيسقوتنا إن شاء الله تعالى إذا كو أن رجينا إن شاء الله تعالى إن ودك وما قنتهين ماموس إن ملجها كل ذهين قرن كان هنتي ما أنك كوها إنه حسوسا إن إذا عشرتي حفلة ومدحوينه وقبته وسنة كان نجا باجنتي ماشي اللي يهدو رمضان تيكو باجنتي بيش بركة سنيد way suurtoob weyday sidaa darteedna aanu niri bal hadda qurbajoogi aan waxyaalo soo boga marka anagoo madaxweynaha iyo xukuumadaba kaga wakiila inaanu kulamada kala duwan la yeelano ay runtii qorsho ahaa wax hadal runtii dheer oo halkan aan ka yiraahdaa way iska kooban yihiin laakiinse muhiimaddu waxa weeye uu soo dhaweynta inaan idinku soo dhaweeyo casho sharafta inaan idinku soo dhaweeyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ka qaybgalkiina aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii joogitaankiina iyo kaalinta ay kaga jirtaan bulshada reer Soomaaliland iyo dhismaha qaranka sidoo kale waxa halka ka hadlay wasaaradda maaliyadda arrimaha dibadda iyo wasiiru dawlaha wasaaradda maaliyadda waxaan oran karaa dadka caawa halkan jooga ee dibadda ka yimid ee dib u noqonaya iyo in badan oo kale inaga maqan oo ama aaniman ama noqotayba ama aan caawin la joogin waa lafdabartii iyo halbowlihii ummadan runtii waa dadkii halgankii ummadan ay soo gashay lafdabarta ka ahaa taariikh fog taariikh dhow iyo tamaanta intaba marka abaal weyn iyo mahad weyn ayaad leedihiin waanu idin mahadnaqaynaa waxaan leenahay jazaakumullahu khayr ma ilaabi karo halka aad dalka kaga taalinay waxaad dalka uga bateen runtii de walaalayaal aasaaskii hay'adda qurba joogga iyo kulamadan aynu isugu soo noqonayno xagaagii sida joogta intii xukuumaddani jirtay u qabatay waxay muujinaysaa danaynta ay xukuumaddani danaynayso xuduudda ballaadhan ee ka mid ah shacabka reer Soomaaliland ee ku filiqsan daafaha dunida waa aragti aanu aragno inay tihiin xoog dalkii waa dad iyo dal marka dadkii reer Soomaaliland qayb badan oo ballaaran ayaa waxay ku nooshahay dibadaha runtii cudud weyn oo dhaqaale iyo aqoon bale ayaanu aragnaa qurba joogga wasiiradii ugu horeeyay waxa muujinaya sidii uu cadaaniba ka hadlayay in qaranku uu sameeyay xafiis la yiraahdo xafiiska xiriirka qurba joogga kale waxa halka ka hadlay mas'uuliyiin ka socota qurba joogta reer Soomaaliland oo uu kamid yahay قاسم حسن مطان iyo sidoo kale mas'uuliyiin kala duwan waxaan celinayaa xukuumadda ee wasiiradaba sida sharafta ay noo xasuumeynay noogu yeereen ay nagu xawrameen waxaan leeyahay taasiyad ka marmariyo anigu waxaan doonayaa inaan ka hadlo saddex qodob mid waxa weeye qurba joogga midna dawladda xaggeeda midna waxa weeye ururada ay doonayaan inay kala doorano waxaan ku oranayaa qurba joogga qurba jooggu bari war waxaan ahay dad ka dhisa oo wax tareenahay waxay ku tartiinay waxay isku duumay iyo gacmo wada jireenahay laakiin waxa moodayna xisbiyadii lama fiicin kala dileen way ka daadanay dirkeen wax badan bay u qaban karaan isku duubanahay waxaan jeclaan lahaa inaynu inoo isku duuban aynu horeysiino taqaranku u baahan yahay ee guud tan xisbiyadana ay kala gano waxa la marto waxaan ku darayaa بلاد روح بطيء وعاش شبيلة حكي مدام حاجة قربها واحد تاجرة ودك قربها وين يا أبولا شركة Soomaaliland ومش كيس كده قربها joogta reer Soomaaliland ayaa waxay kamid yihiin ilaha dhaqaale ee ugu waaweyn ee Soomaaliland ay ka hesho wadanka dabadiisa waxaana munaasabadan ahayd mid lagu boorinayay sidii ay wax uga qaban lahaayeen kaabayaasha dhaqaalaha dalka iyo sidii ay wadanka dib ugu soo laaban lahaayeen Axmed